رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقى الرحمة لخريجي مؤسسة الرحمة. أسقي حياتي قرآن. mu'asasada oo ah mu'asasad aad u baaxad weyn kuna hawlan tarbiyadaynta iyo soo saaritaanka jiil xifdisan kitaabka Allah. mu'asasada oo dhidibada loo taagay 2003 ilaa haddana ka hawlgasha 5 farac marka lagu daro qaybta qiraa'aadka. sidoo kale mu'asasada ayaa ku hawlan oo marna aan ka daalin soo saaritaanka jiil diintooda iyo dalkooda iyo dadkoodaba anfaca. رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. ملتقى الرحمة لخريجي مؤسسة الرحمة isutaga oo lagu dhawaaqay horaantii sanadkii 2015 iyadoo ay isugu tageen dardargelinta dadaalka diineed iyo kor u qaadida kitaabka Allah iyo sunnaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam. ujeedka multaqaha oo ah faafinta kitaabka Allah iyo sunnaha rasuulka iyo xoojinta xiriirka ardayda ka baxaysa mu'asasada, hirgelinta xalaqaad lagu barto culumta kala duwan ee Qur'aanka iyo waliba ku dhiirigelinta ardayda barashada culumta diinta. isutagu wuxuu soo qaban qaabiyay dowro loo qabtay macallimiinta Qur'aanka, ad-dawra tadriibiyya limudarrisi al-Qur'aan al-Kariim, kaasoo kor loogu qaadayay heerka aqooneed ee baraha. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. isutaga oo soo qaban qaabiyay soo dhaweynta ardaydii kaalmaha hore ka soo gashay tartankii Qur'aanka Kariimka ee lagu qabtay magaalada Hargeysa. ardayda kaalmaha hore ka gashay tartanka oo kala ahaa Maxamuud Axmed Cali, Naasir Faysal Faarax, Xamse Cismaan Cabdi ayaa si heer sare loogu soo dhaweeyay duleedka gobolka. soo dhaweynta oo ayna u kala hadhin dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimada, salaadiinta, siyaasiyiinta, aqoon-yahanka, ardayda mu'asasada, macallimiinta iyo waliba dad kale oo tiro badan. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.